bismillahi raxmaani raxiim wada salaamaya dhammaantiin kusoo dhawaada cashirkeena kooban kaga hadlayna qaabka loogu shubo Oracle database. Oracle-kan aynu isticmaalayno waxaanu isticmaalaynaa qaab graphical user interface ah inaga oo ka wareegayna qaabkii command line basically isaga laftirkiisa aynu arki doonaa cashiradeena qeybaha dambe laakiinse imika waxaanu ku isticmaali doonaa graphical user interface application-ka inoo fududeyn doonana magaciisa waxaa la yiraahdaa SQL developer. haddaba waxaa muhiim ah markaynu Oracle-ka isticmaalayno saddex software baa aad u muhiim ah ama saddex application baa aad u muhiim ah saddexdoodaba qaabka loogu shubayo waynu baran doonaa laakiinse waxay kala yihiin Oracle-ka database-ka laftirkiisii JDK ka ay ku qoran tahay iyo SQL developer-ka. Applications-kan way ku shaqeynayaan haddii uu system-kaagu yahay system-kaygan oo kale. System-kaygu waxa weeyaan 64 weeyi system-kaygu waa 64 haddii uu system-kaagu 64 yahay way ku shaqeynayaan applications-kan. haddii aanay 64 ahayna waan ku soo gelin doonaa linkiga aad ka soo download gareysanayso saddexdoodaba. haddii uu 32 system-kaagu yahay waxaad soo download gareysan 32-ga haddii uu 64 yahayna kuwa 64-kan oo idiin soo gelin doona Google Classroom-ka ayaad soo download gareysanaysaan qaabkaan ugu shubayo ayaad ugu shubaysaan haddii la yiraahdo. waxaan idinka xasuusinaa database-ka markaan sameynayo password ayaan sameyn doonaa password-kaasi calaamad cas oo xasuusino password-kan ayaan kugu soo dul qorayaa. calaamadda aan kugu soo dul qorayo iyo password-ka aad gelinayso waad xasuusnaan doontaa si hadhow toona markaynu connection-ka sameynayno markaynu sameynayno SQL developer-keena aynu database-ka ku xidhayno aynu u gelino waa inaad password-ka xasuusnaataa in badan xasuusno password oo fudud ka dhigo. anigu waxaan ka dhigtaa inta badan 1 2 3 4 ayaan ka dhigtaa. kusoo dhawaada cashirkeena waan salaamayaa dhammaantiin qaabkan aan ugu shubay ayaad ugu shubi doontaan haddii la yiraahdo. hadduu system-kaagu 32 yahayna waad soo download gareysanaysaa saan hore kugu sheegay hadduu 64 yahayna kuwan aniguba aan isticmaalay ayaad adiguna isticmaali doontaa.